habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC Somali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah dadka degan xeebaha maamul goboleedka Puntland iyo Jamhuuriyadda Iskad madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa looga digayaa inay ka feejignaadaan duufaan xoog badan oo ku soo fool leh 24 ilaa 48 saacadood soo socda shidaal yari awgeed qiimaha shidaalka magaalada Hargeysa oo laba laabmay sababtu maxay tahay warbixin ayaynu idinkaga haynaa iyadoo laba maalmood ay ka hartay arooska qoyska boqortooyada Britain diyaargarowgii ugu dambeeyay ayaa lagu jiraa duufaan halis ah ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhufato Soomaaliya sida ay sheegtay hay'adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay duufaanta oo lagu magac daray kow waxa ay ka soo bilaabatay waqooyiga badweynta Hindiya waxa la filayaa inay ku dhufato xeebaha Jamhuuriyadda Iskad madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland iyo maamul goboleedka Puntland hay'adda ayaa sheegtay in 24 ilaa 48 saacadood gudahood ay duufaantaasi ku gaari doonto xeebaha gobolada Bari iyo Sanaag dadkana waxa lagula taliyay in ay ka fogaadaan goobaha ay duufaanta ku dhufan karto qaybo kamid ah gobolada Puntland ayaa hadda laga dareemayaa roobab wararkii ugu dambeeyayna waxa inoo haya wariyaha BBC-da Cali Nuur Salaad deegaanada Puntland gaar ahaan deegaanada xeebaha ku teedsan oo ay Boosaaso ku jirto ilaa iyo Saakay waxay ahaayeen ama ay u ahayd maalin roobaad oo roobab ayaa halkaasi ka da'ay ilaa iyo iminkana cirku waa uu xiran yahay oo roobab ayaa ku jira ama laga baqaya dadka deegaanadaas ku nool oo dhanna digniintan waa ay gaartay oo dadku waxa ay muujinayaan baqdin haddii ay dhacdo duufaantan saamaynta ay noloshooda caadiga ah ku yeelan karto hay-adda bini'aadamnimada iyo ka hortagga musiibooyinka u qaabilsan Puntland waxa ay dirtay digniino ay dadka taleefanadooda ugu dirtay ay ugu sheegayso in ay ka taxadaraan dhibka imaan kara Soomaaliya markii ugu horeysay oo duufaan noocan oo kale ah la hadal hayo ama laga baqo ma aha 2013 dabyaaqadeedii gaar ahaan November ayay deegaanada Puntland dabayl sidan oo kale ah ku dhufatay taa oo khasaare geysatay haddaba mareeyaha hay'adda mareynta waxyeelada musiibooyinka ee Puntland Cabdullaahi Cabdiraxmaan Axmed ayaa dadka u sheegay ugana digay dooxooyinka waxaan rabnaa marka inaan dadka uga digno dhulka inay ka baxaan meelaha dooxooyinka ah oo biyo isugu soo ururaan meel gabaad leh maadaama uu dabayl wato inay dhul gabaad leh tagaan oo ay xoolaha iyaguba ka dugsadaan dabaysha iyo roobka iswata kuwa doonyaha leh inay doonyaha meela hagaagsan geysaan qalabka kalluumaysiga aan si aan daadadkuna u qaadin dabayluhuna ay la tegin ama u burburin in meela muhiim laga jiriyo xoolaha in laga jiriyo dadkana laga jiriyo faafayn dheeraada ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya mobilkaaga dhuxul yari ayaa Kenya ka jirta inta la heli karana waa qaali oo qoysaska saboolka ay way ku adag tahay arrintan ayaa ka dhalatay kadib markii la mamnuucay dhuxusha si looga hortago in kaymaha ay baaba'aan loorkii dhuxusha ah toddobaadkii hore waxa lagu kala iibsan jiray $15 haatanna waxa uu marayaa 4 laab lacagtaasi wariyaha BBC-da Suhayba Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa sicir bararka dhuxusha ku dhacay oo saameeyay qoysaska saboolka ah Xaawo Nuur waa hooyo ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi 5 caruur ayay haysataa quraac ayayna u diyaarinaysaa dhuxusha nolosha qoyskeeda ayaa ku tiirsan dib weyn ugu xirnaa soo dadka gaaska haystaan dhuxul uma baahna anaka camal dadka alxamdulillah reer tabreedana dhuxusha iska isticmaalna ayadoo 89 ee hada tamara weynaysa maalin kasta maxaa laga yaabaa ilmi inaadan wax u karin deegaanka Kitui ee dhaca waqooyiga Kenya ayaa dhuxusha ugu badan laga soo shidaa boqolaal qof oo ku nool deegaankan ayaana ka ganacsada waxay u tahay isha kaliya oo ay dhaqaale ka helaan
ni wenyeji wanauza roho safi kwa sababu wamechochewa. Saboolnimada darteed dadka deegaanka sida aniga waxaynu ka iibinaa geedaha dadka meelaha kale ka imaanaya. Qaarkood waa kuwa fac weyn oo 400 oo sano jira geeduhu, laakiin hadda ma jiraan. Geed dhirirkiisu uu yahay 25 cagood wuxuu joogaa ilaa $180, halka midka 20 cagood le'eg uu gooyo 10 ilaa $12. goobtan aan taaganahay waxaa la jaray dhirtii oo waxaa saameeyay dhuxulaysi. geeda 100 sano jiray oo uu ka mid yahay geedkan acacia ayaa salka loo jaray. arrintaasna waxa ay sababtay halkan in aysan ka da'in roob. sidaad aragtaan haatan waxa aan dhex taaganahay webi, wax biyo ahna kuma jiraan. deegaankan Kitui ayaa mamnuucay goynta geedaha iyo dhuxulaysiga, waxaana yaraaday dhuxushii loo dhoofin jiray magaalooyinka waaweyn sida Nairobi. balse deegaankan dhib ayuu ku qabaa sidii uu u joojin lahaa dhuxusha. halkani waa saldhigga booliska ee Kitui. gawaaridanna waxaa lagu soo qabtay ayaga oo sida dhuxul taa oo halkan dahabka ah. waxaan aragnay dad caqli badan oo isticmaalaya dhufaysyo difaaca iyo meel ay ku shaqeeyaan oo ay dhuxusha ku samaystaan xataa habeenkii. waxaan dhahayaa waxa weeye waddankeena ma mamnuucin dhuxusha waddanka gudihiisa lagu isticmaalayo, waxaan mamnuucnay dhuxusha dibadda loo dhoofinayo. shakina kuma jiro in mamnuuca dhuxusha ay faa'iido u tahay bi'ada, laakiin kumanaan xaawo oo kale ah ayay dhuxushu lafdhabar u tahay noloshooda. Suhayba Badqas, BBC, Nairobi. balmarkana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta. hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa kulan degdeg ah ku dhawaaqday oo looga hadlayo khatarta cudurka Ebola ee ka dilaacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. hadda cudurka waxa uu gaaray magaalada Mendobanka, waana saldhig gaadiid oo muhiim ah oo ku yaala webiga Congo, kaasi oo keenay cabsida in fayraska uu si fudud u faafo. 23 ruux ayaa dhintay cudurka ilaa iyo markii uu dilaacay horaantii bishan. dadka reer Burundi ayaa u codeynaya afti u ogolaanaysa madaxweyne Pierre Nkurunziza inuu xafiiska sii joogo ilaa iyo 2034. idaacadaha gudaha ayaa sheegay in dad badan ay codeeyeen, balse in yar ayay kala socdeen kormeerayaasha caalamiga ah iyo kuwa madax bannaan. ololaha codeynta horkacayay ayaa lagu dhaliilay caburin. shirkadda maraakiibta xamuulka ugu weyn adduunka ayaa sheegtay inay xirayso ganacsigeeda Iran kadib markii Mareykanka uu ku dhawaaqay inuu ka baxay heshiiska nukleerka ee 2015. madaxa shirkadda AB Moller Moriska ayaa sheegay in cunaqabataynta dhaqaale ee dib loogu rogay ay ka dhigayso inaysan ka wada shaqayn karin Iran iyo Mareykanka. shidaal yari ayaa ka jirta magaalada Hargeysa oo shidaalka la heli karana inta la helana ay aad u yar tahay. 10 liitar ee naftada ah waxaa toddobaadyadii u dambeeyey la siisanayay $8, halka qiimahana uu gaaray hadda $11. waa kan wariyaha BBC-da Sadiiq Burma. waxaa qof waliba uu qofka kala weydiinayaa kaalinta ugu dhow ee uu shidaal ka heli karo. waxaan ka yimi almost 6 kilomitir baan ka yimi 7 kilomitir. waxaan soo maray ka badan 9 kaalmood ama 10 kaalmood. intaaba waan ka waayay litir petrol ah. tan oo telefoon lagu soo sheegay in petrol hayso ayaan soo gaaray. waad aragtay caagad baan seenaa shidaalay baa dalka jirta imika ilaa 8 kaalmood waan soo maray ku dhawaad shidaal lama hayo muddo 2 cishaan gawdada naga fadhiday. sababta qaaliyowga ama shidaal la'aanta jirta ayaa waxay tahay iyadoo dhawaan uu shidaal xun oo waddanka soo galay weli uu ku sii harsan yahay haamaha shidaalka, kaasi oo waxyeello badan soo gaarsiiyey gawaari aad u tiro badan, welina shidaal wanaagsani ma uu iman. shidaalka xumaaday ee bishii ugu dambeysay dalka ku jiray ayaa sababay in gawaaridani ay ciladoobaan, taasina waxay keentay kalsooni darro badan oo lagu qabo shidaalka berbera ka yimaada, iyadoo shidaalka cusubna aanu weli iman. Sidiiq Maxamed Burmad, BBC, Hargeysa. markana wararka ciyaaraha ugu waaweyn. Antoine Griezmann ayaa 2 gool dhaliyay iyadoo Atletico Madrid ay afka ciida u dartay Marseille. waxay ku guuleysatay koobka Yuruba markii saddexaad 9 sano gudaheed.
labadiisa gool ee quruxda badnayd waxaa raacay goolka kabtan gebi oo noqday kii saddexaad 2010 iyo 2012 ayay sidoo kale koobkan qaadeen. goolhayaha talyaaniga Gian Luigi Pavone ayaa ku dhawaaqay inuu Juventus uu sabtiga ciyaarta u dambaysa u safan doono kadib 17 sano oo kooxda la joogay. 40 jirkan wuxuu sheegay inuu ciyaaraha ka fariisan doono dhamaadka xilli ciyaareedkan isaga oo sheegay inuusan hubin in gabi ahaanba ciyaaraha uu ka wada tagi doono. codsiyo shaqo ayaana soo gaaraya. maalmo gudahood wiilka ay boqoradda Ingiriiska Elizabeth ayayda u tahay Prince Harry ayaa guursanaya Meghan Markle in aqalka boqortooyada ay ku soo biirto gabal jira oo Mareykan ah. waa taariikh ku cusub boqortooyada. dharka ay aroosada xiranaysa iyo martida halkaasi ka soo qayb galaysa weli lama sheegi karo. waxaase la hubaa in dhinacyo badan marka laga eego uu noqon doono mid ka duwan wixii la arki jiray. maxamed xaraare ayaana ka waramaya warbixintan. xidhiidhka Prince Harry iyo Meghan Markle wuxuu bilaabmay xagaagii 2016. waa xidhiidh jacayl oo xiise leh oo laga xafiday indhaha xogbaarayaasha. xilli 18 bilood ku kooban xidhiidhkooda kadib ayay ku dhawaaqeen inay isxudumanayaan. gebi ahaanba waa laygu xaday ma ahayn midaan ogaa. saaxiib labadoodaba ku weyn ayaa isbaray dabeedna si toosa ayay isugu xirmeen. xaqiiqda ah inaan si degdeg ah ku jeclaaday Meghan waxa ay tusaysaa in xidigaha oo dhammi ay iswada xigsadeen. wax walba si hagaagsan ayay u dhaceen. waa haweenay qurux badan oo si xasilan nolosheeda ku soo gashay annateeda aan ku biiray. maalmo gudahood markii ay is-alkunteen lamaanuhu waxay dhex mushaaxayeen Britain iyagoo matalaya reerka boqortooyada. waxay wada jir tabarrucaad iyo taakulo ugu deeqayeen arrimo bini'aadanimo. waa han labadooduba kulankooda ka hor hagoognaayeen. ha yeeshee ayaamihii hanaqaadkoodu ma ahayn kuwa is-shaabaha. Meghan oo 3 go'ood ka weyn Harry waxay ku dhalatay Los Angeles. waxaa dhala reer isku dhaf ah caddaan iyo madow isguursaday. intii ay ku howlaneed inay heer ka gaarto shaqadeeda jelista oo lagu xasuusto filimka Sweeties. isna howl buu u hayay ciidanka qalabka sida. wuxuu shaqo qaran ku tegay Afghanistan. xiriiro isxigxiga dumar wuu la yeeshay. qaar baa dhowr xagaa dhaafay. iyana ori bay ahayd tan iyo ilaa 2013. sannadihii 1930meeyadii amiir Harry awowihiis saddexaad King Edwardkii 8aad oo guursaday xaas garoob Amerikaan ahi wuxuu mutaystay dayro. ha yeeshee tegay waayadii guurka boqortooyadu calmashada burburin jiray. maadaama uu amiir Harry yahay dhaxal sugaha 6aad ee boqortooyada marka loo eego walaalkii William iyo dumaashadii Kate isaga iyo marwadiisa cusubi ma saarna xilsaa u sii buuran. sidaa awgeed waxay go'aansadeen in guurkoodu u dhaco gedday rabaan. waxaa la keenayaa doolsho asal ah oo aan kiimika lagu barxin. muusig dhaqan ah oo qadiimiyana waa la tumi. marti sharaf shicib iyo ka kooban shaqaale bini'aadanimana waa la casuumay. goortay Harry iyo Meghan aqbalaan guurkooda ma ahaan doonaan say iyo ori keliya ee waxay sidoo kale noqon doonaan amiir iyo amiirad. waa bog cusub oo u furmay jiilka cusub ee reerka boqortooyada Ingiriiska. ugu dambayntiina waxaa laga yaabaa in aad shimbiro gaajaysan ku aragto xeebaha oo aan ka leexan cuntadaada. magaalada Perth Australia dadka waxay isaga celiyaan shimbiraha qoryaha biyaha. maqaayadanna waxay shimbiraha ag wareegaya ee fursadda ku raadinaya inay mar wax u dafaan u isticmaashaa qoryahan. wararkan iyo kuwii ugu dambeeyaba waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan boggeena bbc.com Soomaali. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna caawa. waadna ku mahadsantihiin daawashadiinna. intaan kulmi doonno habeen dambe aniga asxaabta waxaan idinkaga tegaynaa nabad gelyo.